degmada hodan الوذاك degmada wadaag hodan degmada wadaag keemada Wardhigley degmada hodan degmada الوذاك keemaanay degmada Dharkeenley isla degmada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga daawaneysaan waa Cadaan Media Production. maanta waxaad dalxiis u aaday degmada Daynile. ujeedin waxa waaye doog qurux badan ee degmada Daynile. waxa dhex geli doonaa nala soo. waxaanu joognaa beer kamid ah beeraha loo soo dalxiis tago ee ku taala degmada Daynile. waxa jooga dad badan oo dalxiisayaal ah oo ka yimaada magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan. waxa waaye arki doontiin nala soo. waayahay markaan waxaan la joogaa mid kamid ah dalxiisayaasha maanta soo dalxiis tagay degmada Daynile. soo dhawaado ku bilaabay magacaaga. بسم الله أنا مجاي عمر سالم عمر كان يمد دقمة الوذاك صح إن مثلا نحن نسوي معنا دلعيس باشال يقصتو إن إنسانين ضدك معناها ما الفوق أكيد مادان صح دلعيس ماشي اللي ماذا فهمت markaas kaliya ma familkaaga kula socdo familkayga la socdo dadkayga صورة سنة Daynile way degmada Daynile saaka amisaneed marka had imaatay qaab nuucee waa والله خاب أول واحد أمسنا ميل الدورة صح هاد مجال ومعناها وحنا قطي أنا عادي هنا صح مجال شيء أنا ديار سما عادي waayahay aad u maasantay kaasna wuxuu ahaay mid kamid ah dalxiisayaasha maanta soo dalxiiska degmada Daynile waxaan gudiraa barnaamijkeena dalxiisayaasha maanta ee degmada Daynile markaan waxay la joogo qof kale oo ka tirsan dalxiisayaasha maanta soo dalxiiska degmada Daynile soo dhawaado ku bilaabay magacaaga aad iyo aad u dhawahay magacaygu waa Ibrahim Cadaani waxaan halkan kaga imaaday degmada hodan ee gobolka Banaadir waayahay ayuu degmada Daynile saaka amisaneed intaad imaan ka hor والله horta Daynile sidii la sheegay jir meel duur ah ku uga jir oo aanan dalxiisi waxyaabaas ku fiicnaan balse wixii maqli jiray imaanta wax arkay waa kaafi kala dheeri aad iyo aad oo kala wax aad iyo aad u badan oo dhaxay marka waa degmo aad iyo aad u qurux badan oo dhanka dalxiiska magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo baxday waayahay ayuu ma kaliya imaata dalxiiska mas familka iyo waxa kula socdo dad kale ma dad familka ay la socdo laakiin asxaab aan iskuul ahaan oo wax badan ay soo wada joognaa isla socdaan maanta waayahay kaasna waxa ayuu Cadaani oo kamid ah dalxiisayaasha degmada Daynile maanta soo dalxiis tagay waayahay markaan waxaan la joogto gabar kamid ah dalxiisayaasha maanta u soo dalxiis tagay degmada Daynile soo dhawaado adiga magacaaga ku bilaabay أنا magacayga Najma Abshkur waaye Najma degmada u soo dalxiis tagay maanta degmada Daynile wallahi Daynile الوذاك inta laba baaqi ma Daynile waa degan hadda Daynile ma ka imaatay mas'uul wadaag wallahi الوذاك wadaag imaatay waayahay ma kaliya soo dalxiis tagtay mas waxa kula socdo familkaaga ma ani familkayga waayahay degmada Daynile dadka waxay ka aaminsan yahay inay tahay meel duura oo dadka ay is iimaan marka maxaa la leedahay dadka ku daawanay duura ahaalad ani soo qurux badan ma iimaanay ma ogido marka waxaan leeyahay Daynile meel qurux badan waa amnigeedu u sugan yahay oo maxaa lahaay doog qurux badan indhaha oo uroon yihiin Daynile waa doog waa degaan qurxoon oo dadku wada jecel yihiin haloo soo dalxiisaan leeyahay marka waayahay reer Daynile waxay leeyihiin hal lagu soo yaac degmada la soo aruuro markaan waxaan la joognaa mid kamid ah dalxiisayaasha maanta u soo dalxiis tagay degmada Daynile soo dhawaado magacaaga ku bilaabay oo dhaw magacay waa Bil Ahmed Maxamed waayahay bilow degmada soo dalxiis tagtay waa Daynile maanta ugu imaatay degmada wadaag imaatay waayahay Daynile intaad imaan ka hor maxaan ka aaminsanay horta والله waxaa ka aaminsanaa degmooyinka ka hooseyso oo yaani ibra macna waayahay marka imaatay maxaa aragtay marka waayahay والله marka imaadaniyo degmooyinka wax badan ay dheertay صح dadka dhaw soo dalxiis tageen صح waayo beer iyo meel saas la aadi jira beerta waxa laga yaabaa roog inuu yaalo dadku dalxiis tagayaan roog laakiin meesha waxa cagaar ka buuxda oo jeedin cagaar dabiici ah way dadka maxaa leedahay marka dadka wallahi waxa leeyahay salaama inta hadda soo dalxiis tagina xal kuleetay الله صدق الحستق الله صدق الحستق واي Daynile imaada muqlisiinay markaan waxaan la joogaa mid kamid ah dadkii u soo dalxiistay maanta degmada Daynile soo dhaw brada ku bilaabay magacaaga waan dhawahay magacayga waxa la Shiin Cabdalla waaya Shiin Cabdalla degmada soo dalxiistay waa Daynile ugu imaatay maanta niyo aniga degmada waxaan ka imid Wardhigley waaya niyo Daynile maalinta ku horeysay imaatay miyaa masahara u maatartay maya hore waa ima jiray laakiin dalxiiskada meesha hadda saan ma ahayn hadda waxaan dareemayaa in Daynile dalxiiska ay ku cantahay oo aad ay dadku u fahmeen in meel dalxiis ku canay tahay صح
meelaha ugu caansan degmada Dayni loo soo dalxiista waxaa kamid ah tropical iyo qaybo badan marka qaybtee marka aad u xiisaaniyo maadaama hore aad u imaatay wallahi aniga awal waxaan tagi jiray tropical village hadda laakiin waxaan danaynayaa inaan duurka aan galo waayahay Soomaali duurka ka imaatay markii la beemaan brada duur la rabnaano waayahay markaan waxaan la joogay mid kale oo kamid ah dalxiisayaasha degmada Dayni la maanta u soo dalxiistay soo dhawow adiga ku bilaabay magacaaga dhawahay magacayga Xamdi Cabdi Axmed Xamdi inta ka soo dalxiistay maanta degmada Holwadaag waayahay degmada Holwadaag maanta Dayni la imaatay Dayni intaad imaan ka horta maxaa ka aaminsaneed inay tahay meel duur ah aan dad imaanin ma sha Allah maanta u jeedaa inay tahay meel aad iyo aad u fiican dadku waxaan leeyahay Dayni la soo booqda dalxiis u imaada meel aad iyo aad jawigeedu u macaan صح aad iyo aad cus dibiciya yeel meeshan beerta camal maan ma sha Allah jawigeedu xitaa beel hawadeedu macaan soo booqda Dayni le waayahay markaan waxaan la joogaa mid kamid ah dalxiisayaasha maanta u soo dalxiistay degmada Dayni le soo dhaw baraad Cadaan Media Production adigu bilaabay magacaaga dhawahay magacaygu waa Cabdiliil Saalax Abdulle waayahay Cabdiliil degmada maanta ka soo dalxiistay Dayni looga imaatay degmada Hodan waayahay Dayni intaad imaan ka horniyo maxaa ka aaminsaneed baraad wallahi Dayni maanta miyoo la saaxib sawir jeer ay imaaday dalxiiska waa meelaha kale ku fiican jawi degan waa صح alxamdulillah marka dadka maxaa leedahay dalka waxaa leeyahay ku soo dhawaad degmada Dayni waa degmadeena waa degmooyinka waxay kamid tahay lagu faano oo dhowr badan ba heeso badan laga tiriyay dabcan asla degmada Dayni sida u jeedo bahalaha qanqiga joogo baa u jeedaa in dalxiis loo imaado meelihii baan sida tusaale kale meelaha Daarusalaam oo kale hadda waa la naco waxa leeyahay inta u socda maanta tropical ama Dayni u socda dalxiiska hadda tropical waxa kamid ah meelaha ugu caansan ee degmada Dayni ku yaal loo soo dalxiistago waxa waa tagi doonaa gordhow insha Allah marka waxay kamid tahay marka Dayni meelaha hadda caanka oo sawirka lagu soo aado sidaas awgeed dadka hadda way jeclaystaan doogeeda waa dhawaa waa mahadsantiin soo dhawaada Dayni ku soo dhawaada degmada ka soo dalxiisteen Hodan waa degmada Hodan ka imaateen adiga ilmahaaga marka see yaani degmada Dayni la markaad imaatay maxaa dareentay wallaahi waxaan dareensanahay jawi degan oo macaan oo qurux badan qorraxdood moodo inay dhulka isla soo qabanayaan gool galabaan imaano meeshaan marka quruxdii iyo bilicdii magaalada aad waayaan soo xasuusanay haddii ay noo saamahay caawa iska seexan lahayn meeshaan quruxda iyo jawiga degan oo ku haysan la joognaa dad kamid ah dadka u soo dalxiistay maanta degmada Dayni soo dhawaada ما شاء الله ودوناي ادي اد waxa waa diyaarsantidiin salyaashiin khilafkiin xataa raweetiin ما شاء الله anaga waxa farxadeena waa dhameystiranta iyo qurba joog maadii saaxiibaalo ما شاء الله waan jecelnahay dalkeena inaan horumarino waxyaalaha dalkeena ka baxo inaan la imaano meeshan quruxda badan ee degmada Dayni le anagoo ka imaanay degmada Dharkeenley waxaan soo jarnay talaabo dheer waan ku faraxsanahay inaan la qabsano bulshada quruxda badan ما شاء الله waayahay marka Dayni intaad imaan ka hor horta maxaa ka aaminsaneedin nimayo alxamdulillah saanayna qadontaa iyo ismaan dheheenin meeshan bulshada iyo qaabka waxaan aragnaa dad qurux badan gabdho qurux badan wiilal qurux badan ma sha Allah isma dheheenin Dayni asaan mar loo imaan doona sida meelaha beerta nabadda kaleeto beerta Banaadir ma sha Allah waxaan jeclahay inay sii hormarto degmada gul ayaan leeyahay waan dhawahay marka kood waa salaamaya saxaabta qaaliga janalka ku xiran marka kood waxaan leeyahay subscribe comment share markii uu nagu horeysay aan imaano meel saan dalxiis oo Dayni degmada Dayni la kamid ah alkoor dhowr mar dalxiis ma soo aadnay dhinaca jasiiro xigto beerta meel farbadan oo soo markii uu horeysay aan Dayni lagu aan soo gelin dalxiis wallahi aad iyo aad waxa nolol fiican oo tusay habi waxa u maleynaa inaan maanta qurbaha aan ka dhaano wixii isku qabsaday roobkii gabal dhicii doogii farabadan aad iyo aad ma sha Allah ma hadda waxa iskala markii koowaad qurux badan ka soo baxla Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxa iskala dhamaan dadka ka shaqeeyay inaan quruxda badan u sameeyay